habeen ay gaardameer ku soo guurtay dadka qaarna waxay dhahaan maalin ay gaardameer ku soo guurtay bal qaabkii ay kugu suurto gashay inaad Shabeelle bakaaraha ka soo rarto nala wadaag ani daawadayaasha waxay igu suurto gashay horta idaacadu hal habeen ma soo guurin dadku sidaas ay aaminsan yihiin idaacadu iyo TV aan ahay marka hal habeen ma guuri karin muddo 4 bilood ayaan hadii alla ku roon yahay maalin bashay ayaan u dhiibay horta darawalkii markii u dambeysay ay soo hartay waxa hadii alla ku roon yahay la qaadi karo waliba 4 bilood intaan maalin bashay qaadayay Soomaalida sir ma lahayn hadii alla ku roon yahay warkii waa u fakaday oo idaacada Shabeelle inay ka guureyso hadii alla ku roon yahay bakaaraha ayaa waxa soo qoray hadii alla ku roon yahay qolooyinkan website-yada oo dibadaha joogo beenta hadii alla ku roon yahay aduu aan ka fiirsan warka ay qorayaan warkaas markii uu suuqa galay hadii alla ku roon yahay anigu idaacadan ka hadlayo waa aan beeniyay kadib xirfadaan sameeyo hadii alla ku roon yahay suuqa bakaaraha rag badan oo guriga ku lahay ayaan u tagay oo waxaan iri guriga aan deganahay maxamed daylaaf wuxuu yiri hal ay baneeyo marka guri kiraaha rabna saciid colo waa u tagay oo aan weydiistay daartii Olympic la dhihi jiray inuu uga kireeyo adigu rag badan aan u tagay kadib nimanka shabaabna way la soo hadleen waxay dhaheen waxaan maqlay inaad guuraysiina maxaa ka jira warkaas been waayaan iri guriga aan deganahay inaan ka guurno waan rabnaa oo ninkii iska lahaa ayaa yiri hadii alla ku hal iga baxo laakiin suuqa bakaaraha iyo hadii alla ku roon yahay aaga aad ma mushiiraan ka rabnaa inaan meel kale ka dego marka waa weydii kartii raggaas aan weydiinay guriga kira adigu ayagiina waa sameeyeen sidii intii aan sheegay oo aan guri kira weydiis way u tageen ayagoo raba xogta inay ogaadaan waliba waxaan yiri hadaan bakaaraha ka waayo waxaan rabnaa inaan ceelasha biyaha dego marka aagas ayaga ka tilinayo way ku qanacsanaayeen dhinacyada in loo guuro adigu 2 bilan sii joogay markii warkaas baxay kadib habeenkii u dambeeyay marka waxaan saaranay alaabta 2 baabuur oo noo teelay 9 saac oo habeenimo markii hadii alla ku roon adinka dambe la adimay adinka salaada subax u bilow ayaan 2 baabuur alaabti ku dhamaynay hadii alla ku roon waxaan ku dhex guurnay ayaga dhexdooda jidka warshadaha uga dhaxla laabiga marka inta hadii lagu qabto ma ogtahay sokana looma soo guuri karo waxay joogeen hadii alla ku roon yahay wadadan waa soo dhaafsiisanaayeen waxay joogeen hadii alla ku roon daadiga dabka marka xagga hadda soo guurto waa lagu qabanayaa si fudud ayaa lagu helayaa marka ayagaan ku dhex guurnay jidka warshadaha ayaan ku dhacay jidka warshadaha qaadnay iskooyska ex control markii la joogo ciidanka dawladda joogo iskooyska la soo rogmana marka marka inta ka horeysa haday ku qabtaan waxa leedahay ceelasha biyaha u socda waana dhulkay ka talinayeen oo ayagu hadii alla ku roon yahay dhibaato ma arkaan marka sidaas oo soo guurnay kadibna guri noo diyaarsanayo aeroboortka agtiisa ayaan degan marka shaqaalaha iyo wax ka shaqeynayana war kama aysan haynin oo qaarkood ayagu xarunta jiifaan uga tagnay oo ay subaxii ugu yimaadeen hase yeeshee dad warmooga inay yihiin markay arkeen oo ayaga laftirkooda hadii alla ku roon yahay ninkii ugu horeeyay subaxii yimid wuxuu ahay Abu Xabsan la dhigi jiro shabaabka kamid oo darsiga ugu horeeyay idaacada ka aqri jiray subaxii marka wiilal jiifo u yimid waa kiciyo wuxuu yiri shida korontada hadii idaacada waa la jooga waqtigii marka korontadana waa jirnaa anagu markaan bixayna xataa hadii alla ku roon yahay wiilkii farsamayaqaankii waa uu toosay suudiyo galay waxyaalo male mobile uu shitay korontadii ma shidmayso ina waxba aalin oo arka miis iyo kursi waxaan ay ka baanaatay hadii alla ku roon yahay nin aqli badan oo hayo inta ku soo laabtay Abu Xamsi oo wuxuu ku yiri korontadii yaa baq Abu Xamsi wuxuu ku yiri marka idaacadu dhaweey oo ay lahaayeen oo la dhihi jiray hadii alla ku roon Furqaan oo yiri Furqaan ka soo noqonaya si diyaar garoob marka ay arkeen intii kale ku ciyo marka joogtay barnaamij waxyaalo ma lahow markaas ka baxeen Abu Xamsi soo laabtay oo Furqaantii ka soo laabtay oo meeshii iyo cilla yimid meelo xafiisyada galay waxyaalo ma la kursi iyo miis waxaan miyaalli albaabka saawa furay hadii alla ku markaas waa shabaabki
halkaasi isugu yimideen kadibna masaajidka Abu Hurayra inta tageen waxay ugu xukumeen waa saariq lagu gacan laga gooy marka ma hanti ayagu ay leeyihiin in qaatay aad u qabtaa marka waxyaabihii waxa jibka badnaayo hadii aan la koray soo maray